dhagaxa waa 2000 yuusan ka dhamaan dhagaxa waa 2000 yuusan ka dhamaan wiilkan aad arkaysaan yar ayaa wuxuu la yimid fikir cajiib ah oo la yaabi doonto markii aad aragto wiilkan ayaa isku dayay inuu sameeyo dhaqdhaqaaq ganacsi kadibna wuxuu waayay lacag uu wax ku bilaabo deetana inuu meel fariistay ayuu fikiray bac ayuu qaatay deetana wuxuu ka soo buuxiyay dhagxaan laamiga garabkiisa yaale ayuu soo aruursaday oo bacda ka soo buuxiyay deetana microphone ayuu cod ku soo duubay isagoo oranayo dhagaxa waa 2000 yaa laga dhamaysan dhagaxa waa 2000 yaa laga dhamaysan dhagaxa waa 2000 yaa laga dhamaysan dadkii eriyada marayay ayaa u wada yimaadeen dhamaantood ayaga oo la yaaban dadkii ayaa waxay weydiiyeen war hadii aynu dhagaxa ka gadanno oo aynu ka iibsano maxaynu ka faa'iideynaa maxay tahay faa'iidada aynu ka helayna dhagaxan ilaan dhagaxan luul ma ahan dahabna ma ahan waxbana soo kordhin maaye muxuu noo anfacayaa hadii aynu ka iibsano wuxuu oranayay war waxbuu ku tarayaa xitaa qof baad ku daqartide xitaa qof ku maagayba aad ku dhufatide waxbuu ku gelayaa dhagaxu dadkina waxay sameeyeen dhamaantood waa ay ka iibsadeen dhagaxii oo qof waliba hal dhagax ayuu ka iibsaday deetana halka wuxuu ka helay shaqo abuur wanaagsan iyo fikrad aad u qurux badan dadka dhagxaanta ka iibsaday oo ra'yigooda la weydiinayay ayaa yiri sidoo kale wiilkani wuxuu la yimid ra'yi aad u qurux badan iyo fikir wanaagsan sida darteed hadii aynu dhagxaanta ka iibsano oo aynu dhiiro gelin barina wuxuu la imaanayaa fikirkan mid ka sii qurux badan iyo mid ka sii wanaagsan ayuu bulshada la hor imaanayaa wiilka yarka ah daadiisa aad bay u yartahay laakiin garaadkiisa iyo fikirkiisu waa uu dheer yahay oo meel dheer ayuu taabanayaa waa tahay qofka bini'aadamka waxa wanaagsan maskaxdiisa inuu shiilo waxa wanaagsan inuu meel dheer ka fikiro sida darteed wiilka yarka ah intuu dadka tuugsan lahaa intuu qof bini'aadan wax weydiisan lahaa intuu qof oran lahaa qadada iga bixi intuu qof oran lahaa maanta shaah ii shub wuxuu door biday in uu shaqaysto uu isaga hal abuur iyo ra'yi la yimaado wuxuu la yimid fikir cajiib oo qariska tuura bal inuu ku faa'iido iyo in kale ugu dambeeyna wuu ku faa'iiday qofka waxa loo baahan yahay in uu fikir isku dayo ugu yaraan wax inuu dhaqaajiyo maadaama uu lacag waayay wuxuu la yimid ra'yi ah in uu dhagxaanta soo aruursado dadkina way ka iibsadeen oo fikirkiisii wuu u gadmay dunidan aad arkayso waxay ku dhisan tahay fikir iyo isku day iyo geesinimo maanta dunida halka ay marayso dad baa gaarsiiyay qof waliba waxbuu soo saaray sariirta aad ku seexanayso qof baa ka fikiray siday u ekaan lahayd computerka aynu isticmaalayna qof baa soo saaray laydadka aynu isticmaalayna dad baa soo saaray taleefankan aad adeegsanayso qof baa soo saaray kaamiradan aynu isticmaalayno qof baa soo saaray halkan aad iga daawanaysa hadii ay YouTube ahaan lahayd Facebook meel waliba qof baa in u fikiray ayaa soo saaray hadii aynu tusaale Facebook soo qaadano qof baa u fikiray maskaxdiisa tuujiyay deetana ku fikiray talow sideed u sameeysaa aalad ay dunida ku wada xiriirto aalad adiguna dhaqaalaha ka hesho adduunyada aad kaga faa'iideyso magac noocee ayaad u bixinaysaa sidee ayay u shaqeynaysaa kadib waxa yimid qaabkee ayay aaladda u shaqeyn doontaa yaa isticmaali doona sidee loo adeegsan doonaa xogaha dadka sidee loo kaydin doonaa iyo waxyaalo tiro badan sida darteed qofka hadduu wax isku dayo fikiro dhaqaajiyo maskaxdiisa waxa uu soo baxayo wax uu noloshiisa ku guuleysan karo wiilka yarka maanta ra'yigiisa markuu fikiray wuxuu go'aan ku gaaray inuu dhagaxii aad garanaysay wadada yaale iska caadiga ah inuu ka iibiyo ayuu go'aansaday ugu dambeeyna waa uu iibiyay dhagax isaga ah oo lacag ayuu ka helay baritan wuxuu sameeynayaa lacagtii uu ka helay ayuu nacnac iyo ma garanaysaa shukulaato iyo loos ayuu ku soo gadayaa wuuna sii wareejinayaa dadka ayuu ka sii gadayaa sidaad uu qofka inuu shaqaysto inuu wax wareejiyo inuu shaqo qabsado ceeb ma ahan laakiin waxa ceeb ah qofka inuu dawarsado inuu asaagii wax weydiisto inuu gacanta hoorsado midda ayaa liidnimo laakiin liidnimo ma ahan qofka inuu shaqaysto wuxuu doonaba ka shaqeeyo wiilka yarka bari lacag yar haduu helo lacagta yarko dhagxaanta uu ku iibiyay caseeyo ayuu ku noqonayaa ama ma garanaysaa nacnac iyo loos iyo waxyaalo yar oo laga gadanaya ayuu ku soo iibsanaya maskaxdiisa ayuu tuujiyay shay walba oo maanta la isticmaalayo shay walba oo la adeegsanayo wada walba oo la qaadaya dad ayaa sidaa oo kale ugu fikiray ra'yi wanaagsan iyo maskax caafimaad qabta ku fikiray deetana waxay la yimaadeen wax mustaqbal leh ayagana ay dhaqaale ka helaan adduunyaduna ay intifaacsato oo meel waliba la geeyo tusaale dadka maanta dunida ugu badan ay wax soo saaro fikradaha cusub iyo waxyaalaha cajiibka ah iyo aaladaha la adeegsado dadka ugu badan ee maanta dunida soo saaro waxa weeye waa dadka indhayarka ah China Korea Japan iyo dalalka kale ee la halmaalo dadka dhamaantood waxay
ku fikiraan dhammaantood waxay raadinayaan qof waliba oo dalka iyo deegaanka ay dadka kamid ah inta badan wuxuu ku fikirayaa in uu soo saaro wax cusub in uu dunida wax ku soo kordhiyo in isaga wax uu keenay bari gadaashii la adeegsado isagana inta uu nool yahay inta uu joogo uu ku intifaacsado oo dhaqaale iyo nolol uu ka sameeyo annagu way nagu jiraan dad ka fikir wanaagsan dadka way nagu jiraan dad ka garaad iyo wax soo saarka dadka ka sareeya laakiin dhibaatada haysata ayaa waxay tahay waxaysan helaynin garab ma jiraan jaamacado waxa dadka ka caawiyo ma jiraan meelo qofka ma garanaysaa wixii uu soo saaray uu ku adeegsan karo sidaan arkayay in badan oo baraha bulshada ku arkayay waxa jira dhalinyaro yaryar oo Soomaaliyeed oo soo saaro diyaarado baabuur iyo waxyaalo ma garanaysaa artificial oo aad isleedahay waxan waa wixii oo sax qaar waxay soo saaraan diyaarado buubayo diyaarad caadi oo kacayso laakiin dadkii ma haystaan dawlad caawiso ma haystaan warshado caawiyo ma haystaan jaamacado caawiyo ma jiraan cid qof waliba oo ra'yi iyo fikir wanaagsan la yimaada ku garab siiso oo horay u socod tiraado oo ku garab qabato iyo meel ugu dayda midna ma lahan mid kale waxay tahay Chinese-ka iyo dadka kale ee tusaalaha u soo qaatay inta badan qofka markuu aqliyaysto ee uu qaangaaro noloshiisii asaasiga ahayd way u dhameystiran tahay oo baabuur uu haystaa oo guri uu haystaa oo nolol buu haystaa oo lacag buu haystaa sida daraadeed qofku wuxuu ka fikirayaa isaga wuxuu soo kordhin lahaa laakiin inagu qofka yaga 20 jirka ee qaangaaro wuxuu ka fikirayaa in uu raadiyo wuxuu asaga cuni lahaa biilkii iyo sidee ayaad u noolaanaysaa markuu dhowr iyo 10 sano iyo waqti badan uu shaqeeyana wuxuu ka sii fikirayaa sideed guri ku dhisataa sideed gaari u gadataa sideed ayaad u noolaataa iyo waxyaalo nooca qofka wuxuu ka fikirayaa noloshiisa caadiga sidoo u noolaan lahaa ayaa waxa weeye waxay u tahay cashir iyo waqti maskaxdii uu gelin lahaa inuu wax soo saaro maskaxdii uu ku fikiri lahaa inuu dunida wax cusub ku soo kordhiyo wuxuu gelinayaa ama kaga fikirayaa sidii uu quutulyoon u soo saaran lahaa sidii asaga uu noolaan lahaa sida meesha uu degan yahay meel dhaanta uu aadi lahaa sidoo dalka kaga taariibi lahaa oo uu aadi lahaa wadamo kale iyo meel uu ma garanaysaa abni iyo nolol iyo ma garanaysaa wax ka helo ayuu ka fikirayaa qof sida darteed dadku inaga kama maskax xumin dadku kama hoosayna dadka kama liidana laakiin wax hoos noo dhigaya ee dadka naga reebaya ayaa ah bay'ada aan ku noolnahay dalka yaga burbursan iyo qaaradda aynu ku noolnahay oo dhamaanteed aan lahayn wax soo saar waayo ma arkaysid wax dunida laga isticmaalo maanta wax dunida wax tar u leh oo lagu leeyahay qof Afrikaan soo saaray ama wadan Afrika laga soo saaray la leeyahay ma arkaysid dadkuna dadka dunida jooga dhamaantood kama wada maskax xumo laakiin waxa jira duruufo iyo xaalado ayaa jira waa tahay wiilka yarka marka wuxuu mudan yahay dhiirigelin iyo garab istaag wuxuu mudan yahay in wiilka yarka in la garab istaago wax loo aruuriyo dukaan loo furo la yiraahdo niyow nin waxa tahay fikrad ganacsi leh waxa tahay nin horumar doonayo waxa tahay nin wax qabsanaya shaqaysa in la yiraahdo aad ba maasantiin